بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا قصدين أو حليادن وكلا أدنوغا براتين إنان هوادا إنكاغا سو باهينو قصدين مانتا oo saameyn weyn leh waxaa ciwaankeeda uu noo noqon doonaa qisadii hooyadii aamusnayd. waa sheeko qalbi taabad leh, soo jiidasho badan, kuna habboon in lala wadaago dhagaystayaasha. aadna ka bara kartaan duruus badan oo suurtagal ka dhigaysa inaad fahantaan waxa lagala joogo qisada hooyadii aamusneed. waxaa jiraya dad noloshaada ku jira hadalladooduna aysan badnayn, balse qalbigoodu uu ka buuxo duco aan la tirin karin. dadaalkaas waxaa laga yaabaa inaadan meel walba ka helayn, balse sidoo kalena ma jirto codsi aad ka codsanayso wax badan oo ku saabsan arrintaas. aysan sidoo kale kama mashquulaan mar kasta ducadaada iyo dabagalkaaga. waxaa sidoo kale jira in mar walba ay ku jecel yihiin, laakiin haddii aadan dhab u fiirsan ma dareemi kartid marna. waxaad arkaysaa nolol dhan oo adiga ku jahaysan. sheekadan waxa ay ku bilaabanaysaa guri yar oo ku yaala xaafad aamusnaan badan oo ay ku sugan tahay hooyo iyo wiilkeeda. gurigan waxaa ku nool hooyo weyn iyo wiilkeeda oo keliya. hooyada waxaa la oran jiray Hodan, wiilkana waxaa la oran jiray Cabdi. Cabdi wuxuu ahaa wiil caqli badan, dadaal leh, balse aad u mashquul badan. waxa uu aaminsanaa in noloshu ay tahay orod joogto ah. subaxii ayuu toosi jiray, shaqada ayuuna aadi jiray. habeenkii isaga oo daalan ayuu ka soo noqon jiray. waxa uu mar walba lahaa hal cudurdaar, kaasoo hooyadii ku oran jiray, hooyo waxaan ahay mashquul. laakiin hooyadiis Hodan waxay ahayd haweeney aad u degan, wax badan ma hadli jirin, ma dhex geli jirin arrimihiisa gaarka. midda kale ma jirin wax dooda oo iyadiyo wiilkeeda dhex yaalay, mana jeclayn in wiilkeeda ay culays saarto. markasta Cabdi uu yimaado waxa ay ku soo dhoweyn jirtay dhoolla caddayn yar, shaah kulul iyo sidoo kale indho jacayl ay ku qoran yihiin. haddana Cabdi wuu iska sii socon jiray marka hooyadii ay salaanta u dhammayso. wixii ka dambeeya waxa uu qaadan jiray aamusnaanta hooyadiisna u moodayay inay tahay dabeecad caadi ah. mararka qaar xitaa wuxuu oran jiray, hooyo waxaa tahay qof aamusnaan badan, wax badanna ma hadashid. laakiin haddii aad qalbiga ka maqli lahayd waxa ay sheegaysa aamusnaanta hooyadu ma ahan mid madhan, waa buuq jacayl oo aad saameyn weyn ugu leh nolosha Cabdi. laakiin isagu marnaba uusan maqli karin shanqarta yeeraysa. hooyadii haddana ma caban jirin duruuf kasta iyo xaalad kasta ay ku sugan tahay. habeen kasta marka ay guriga u yimaado Cabdi, Hodan waxa ay fadhiisan jirtay xilliga dambe ee jiifka sariirteeda agteeda, waxayna soo saari jirtay warqad yar iyo qalin duug ah. waxay ku qori jirtay magaca wiilkeeda, mararka qaarna waxa ay qori jirtay ducada ay subaxii u akhrin lahayd. mararka qaar waxa ay ku qori jirtay hadallo qalbi jab ah oo aan cidno maqlayn. waxa ay ku qori jirtay warqadaas inta badan, ilaahayow wiilkayga ii ilaali, ilaahayow jidkiisa u sahal oo u toosi, ilaahayow qalbigiisa ka fogee murugada, ilaahayow aniga haddii aan ka tago ha ka dhigin mid kaligiisa. warkaas ma uusan ogeyn Cabdi. qolkiisa ayuu seexan jiray, magaalada ayuu u sii ordi jiray, nolosha ayuuna ku dhex dabaalan jiray. laakiin hooyadiis habeen kasta waxay ahayd ilaaliyaha aamusnaanta, ilaalinta iyo korjoogtayntiisa.
waxay sidoo kale samayn jirtay inay u mariso duco joogto ah oo aan dhammaad lahayn. sanado ayaa sidaasi ku mooday hooyo hodan iyo cabdi oo ahaa wiilkeeda. cabdi waxa uu noqday nin dhalinyaro ah oo sumcad leh. wuxuu helay shaqo wanaagsan, lacag ayuu sameeyey, saaxiibo badan ayuu yeeshay, dad badanna way ixtiraami jireen. laakiin wax kasta oo uu helay, hal shay ayaa ka yaraatay, waa xiriirka hooyadiis. waxaa jiray maalmo ay hooyadii isku dayi jirtay inay la hadasho. waxay odhan jirtay, wiilkaygiiyow, maantay ma ila fadhiisan kartaa? cabdi waxa uu si degdega u odhan jiray, hooyo, waan soo laabanayaa, hadba mashquul ayaan ahee, waana kuu imaanayaa. maalin kale ayaan kuu imaanayaa ayuu odhan jiray mar walba. laakiin maalintaas kale mararka qaar ma imaan jirin oo waxaa halkaasi ku baabi'i jiray ballantii uu la galay hooyadiis. maalin iyo habeenba cabdi waxa uu guriga imaan jiray isaga oo daalan. waxa uu arki jiray hooyadii oo kursiga fadhida, wejigeedana uu ka muuqdo daal aan caadi ahayn, indhaheeduna way furnaayeen, balse waxaa ka muuqatay daal qof dheer oo qof meel dheer ka soo laabatay oo kale ah. hooyo, maxaa kugu dhacay? ayuu ku odhan jiray marka hooyadii uu u yimaado. hooyadii waxa ay ku jawaabi jirtay cod daciif ah, waxba ma ahan wiilkaygiiyow, waxaan rabay inaan kula hadlo, ayay ku odhan jirtay. cabdi isaga oo taleefankiisa eegaya ayuu ku yidhi hooyadii, waan ku dhegaysanayaa hooyo, laakiin wax yar ii sug. hooyadii way aamustay. waxay fadhiisatay wiilkeeda agteeda. hadba si tartiiba ayay u tiri, qofka aad jeceshahay mararka qaar waa inuu noqdaa mudnaantaada koowaad, ee ma ahan qofka marka aad firaaqada u hesho inaad soo xasuusato. erayadaas cabdi si dhab ah uma aysan taabanin. maalintaas waxa uu u qaatay talo caadi ah. waxa uu maleynayay in hooyadiis weligiis halkaas aysan ka gaarin xaalkeeda. laakiin noloshu mar walba ma sugto qofka. waxa ay ku socotaa jadwal ay suurtagal tahay inaadan awood u yeelan mararka qaar in go-aanadaada aad gaarto. bilihii xigay hodan xaaladeedu way sii liidatay. waxa ay noqotay mid daalan, mararka qaarna sariirta ma ka kacdo. cabdi waxa uu weli ku mashquulsanaa noloshiisa, waxaana u malaynayay in hooyadiis ay iska bogsan doonto. maalin isaga oo shaqada ku jira waxaa soo wacay deriskiisa cabdi, wuuna gariiray. waxa ay ku dhaheen, cabdiyow, guriga dhaqso ku soo noqo. waxa uu dareemay cabdi cabsi yar, laakiin weli ma fahmin waxa socda. markuu guriga yimid, albaabka guriga waxa uu ka helay aamusnaan aan hore uusan u maqlin. qolka hooyadiis ayaa nal yar ka shidnaa, waxaana dusha sare ka yaalay warqado badan oo si taxadar leh loo laalaabay. wuxuu galay qolka hooyadiis, ma joogin. wuxuu arkay kursigeeda, ma fadhin. wuxuu arkay sariirteedii, cidlo ayay ahayd. wuxuuna arkay warqadaha la qoray oo hooyadii ay saartay goob walba. wuxuu si gariir leh u qaaday warqadda ugu horreysay, waxaana ku qornaa, wiilkaygiiyow, haddii aad warqaddan akhrinayso, waxaa laga yaabaa inaan agtaada joogin, laakiin ogow, weligay ma aanan dayicin ducadaada. maalin kastana waxaan alle kuu weydiin jiray inuu kuu noqdo iftiin, ilaalin iyo sidoo kale barako. waxa uu qaaday warqaddii labaad. mar walba
waan ku dhoola caddayn jiray si aan qalbigayga aadan uga bixin oo aan u dejiyo. ma aanan cabiri karin aragtida dadaalkaaga iyo sida aad u muuqanaysay, sababtoo ah waxaan ka baqayay inaan xasuustaada uga tago meel xun. waxaanse kuu sheegayaa inaan qalbi jab badan ka qaaday ficilo dhankaaga ka yimid. warqaddii saddexaad ayuu furay. wiilkaygiiow, jaceylka hooyo ma ahan hadal badan. mararka qaar waa aamusnaan, waa sabir, waa duco, waa in tanaasul badan lagu samaynayo. waxaan ku noolaa adiga oo aan weligaa kaa codsan inaa i qiimayso. waa hagaag. cabdi gacantiisii ayaa ruxmay, ilmo ayuuna daadiyey. warqaddii afaraad ayuu furay. haddii aan kaa tegay hal shay oo keliya ayaan rabaa in aad igu xasuusnaato. qofku jecel ma aha kan hadal badan leh, waa kan kuu duceeya xilli aad seexato adiga oo aan ogeyn. cabdi dhulka ayuu fadhiistay. waxay noqotay sidii ay saqafkii guriga uu u dumay oo kale maskaxdiisu. wuxuu isla markii ugu horreeyey uu fahmay in aamusnaanta hooyadii aysan ahayn daciifnimo. waxay ahayd arrimo kala duwan oo guud ahaantood ay hooyo si gaara ugu howlaneed cudud qarsoon. waxayna ahayd jacayl aan cod lahayn. waxay ahayd nolol isaga loo hurayay oo hooyadiis ay ku garab taagneed. wuxuu aaday qolka hooyadii. waxa uu helay sanduuq yar oo alwaax ah. gudhihiisa waxaa ku jiray warqaddii ay qortay sawirkiisii carruurnimada iyo ducooyin hameen kasta oo ay ku celin jirtay. waxa uu fahmay in hooyadii ay sanado badan ahayd tiir aan la arkin, qofkii had iyo jeerna u taagnaa ducadiisa balse aan la mahadin. cabdi hameenkaas wuu ooyey ilaa uu waagu ka baryayey. oohintiisa ma ahayn mid keliya murugo, balse waxay ahayd toobad keen. waxayna ahayd mid uu ka shallaayayay wax kasta oo hore u dhacay oo dhex maray isaga iyo hooyadii. waxa uu is yidhi, anigoo nool ayaan waayay qof naftiisa ii hibeeyey. maalmo kadib cabdi waxa uu bilaabay inuu akhriyo dhammaan warqadihii hooyadiis. mid kasta wuxuu ahaa cashar. mid jacayl ayuu kaga hadlayay, midna sabirka, midna cafis, midna qadarin ayay ahayd. wuxuu ogaaday in hooyo aysan weligeed rabin abaal weyn keliya. waxa ay rabtay in la maqlo, la ixtiraamo, lana jeclaado. cabdi waxa uu go'aansaday in noloshiisa inteeda ka hadhay uu nolosha xusuusnaado aamusnaanta hooyadii oo mar walba uu xasuustiisa dib u soo celiyo. waxa uu bilaabay inuu dadka kale u sheego, ha sugin qofka aad jeceshahay inuu kaa tago si aad u ogaato qiimihiisa. dadka aamusan mararka qaar waa kuwa ugu weyn ee aad ku jecel. hooyo ma ahan qof si fudud loo bedeli karo, waana midda keliya ee wehelkaaga. cabdi waxa uu noqday nin dadka la hadla, tala siiya, kana sheekeeya casharadii uu nolosha sida xanuunka badan uu uga bartay. waxa uu had iyo jeerale uu ku celin jiray, aamusnaanta hooyo waa cad la qaato kan ugu weyn. hadalka ma ahan hooyo mid aad si gaara uga sugi karto natiijada. qofka ku jecel mararka qaar ma qayliyo, balse wuu ku duceeyaa.
waa hagaag weli waxaan la soconnaa sheekada iyo qaybaheeda dhexe. waano qoto dheer ayaa cabdi ay hooyadiis uga tagtay kadib markay aragtay ficiladiisa. mararka qaar qofka ugu dhow qalbigaagu waa kan ugu yar ee aad soo xasuusato. mararka qaar jaceylka ugu weyn waa kan aad hadalhayn. mararka qaarna ducada hooyo waxay kaa ilaalisaa dhibaatooyinka aadan weligaa ogeyn. ha sugin maalinta geerida si aad qofka u qiimayso. qiimee inta uu weli kaa dhex nool yahay. dadka jecel in ay nool yihiin ama dadka ku jecel inay nool yihiin muhiim ma ahan inaad ogaato, laakiin adiga ayaa lagaa rabaa inaad noloshooda la socoto. maalin kasta soo xasuuso inay muhiim tahay inaad og tahay hooyada inay tahay qofta koowaad ee nolosha ku hibaysay. haddii aad rabto arrintan iyo dhacdooyinka la xiriira beejkan sabskreib leeg iyo shaarsaar. weli waxaan sii wadnaa qisooyinkee waxaan kuu sii diyaarina halkan oo aan kuu soo gudbinoynaa sheekooyin kala duwan oo aada u xiiso badan, kuwaas oo muujinaya qiimaha ay leedahay hooyada iyo sidoo kale inaadan marnaba mashquul gelin. qisada labaad ee aan maanta doonayno inaan halkan aan ku eegno waxay tahay ninkii eedda badnaa oo eedeyn jiray ee dadkoo idil. waxaa kale oo jira cashar lamida nolosha dadka badankoodna si qoto dheer aysan u samayn. nin ayaa lagu yaqaanay inuu mar walba dadka eedeeyo. haddii roob do-o, haddii jiilaal la joogo, haddii xilli fiican la joogo, dadka ayuu dhaliili jiray. haddii shaqo xumaato ay imaato wuu dhaliili jiray. dadka ayuu ku celcelin jiray. haddii guriga uu khalad ka jirana mar walba qudhiisa ayaa dadka aada arrintaas ugu eedi jiray. maalin ayuu daaqadda agteeda istaagay, wuxuuna muraayadda arkay oo wasakh ah, uuna ka eegay bannaanka, wuxuuna yidhi dadku waa wasakh ayaga dhan. xaaskiisa ayaa timid, waxayna ku tiri muraayaddii ayay nadiifisay. markaas ayuu arkay waxa bannaanka yaalla in si cad aysan u wada ahayn wax wasakha. waxa uu fahmay in aan dadku wasakh wada ahayn, balse muraayadda lagu arko ay ahayd midda wasakhda. qalbigiisa sidaas oo kale ayuu marar badan dadkoo idil ula muuqdeen dad aan ahayn kuwo wanaagsan. taasina waa midda keentay inuu u arko bulshada inteeda kale inay yihiin dad wada wasakh ah. waanada aan ku soo gebangabeynayno qisadeenna maanta ayaa waxay tahay, ka hor intaadan dadka eedayn eeg qalbigaaga. mararka qaar dhibka dadka kale ma ahan ee waa aragtidaada. mar walba ogsoonaaw inay muhiim tahay inaad samayso qiimeyn ka hor intaada go-aan gaarin. cidda aad go-aan ka gaarayso mar walba ogsoonaaw xaaladda aad go-aanka uga gaaraysa inay tahay xaalad munaasaba. markaad eegtay daawade ama aad dhegaysatay, maxaa kaaga baxay adiga sheekadan ku saabsaneed qisada hooyadii aamusneed iyo wiilkeeda cabdi? ma kula tahay hooyadoo idil inay sidaani u aamusan yihiin? adiga oo i daawanaya ama i dhegaysanaya, hooyada ma mid si aamusnaan wax kuugu sheegtaa, mise waxay tahay mid si khaylo ah wax kuugu sheegta? qiyaastii hooyooyinkoo idili si degan ayay caruurtooda iyo guryahoodaba ay wax uga sheegaan. aada ayayna u adag tahay inay inta badan ay hooyo si adag wax kaga dhaadhiciso. laakiin dadka ayaan saas u fahmin oo inta badan waxa ay sameeyaan khaladaad badan oo xaggooda ka imaanaya. hooyo markuu waagu baryo, maxaa kuu diiday adiga inaad salaanto, xog waraysato, la sheekaysato, aadna ogaato xaalkeedu sida uu yahay? adiga i daawanaya, ma samaysaa saas mase ma samaysid oo hadda ayaad bilaabaysaa? maxaa kaaga baxa sheekadan?
maxaadse ka baratay hooyadii aamusneed iyo wiilkeedii mashquulsanaa? sax ma kula tahay hooyo oo kula kaala ii imaaw, kaala ii sheekee, kaala aan wada hadalna inaad ku tiraa hooya mashquul ayaan ahay? sax miyaa taas? haddii adigu aad samaysay miyaad mar dambe samayn doontaa? haddii ay hadda ka hor dhacday oo sheekada aad dhegaysatay, qalbigaaga miyay saamaysay oo ku taabatay sidii aad hooyadaa ballanta uga qaaday, kadibna aadan dib ugu soo laaban, laga yaabee inayba dhimatay oo aadan ku soo gaarin halkii aad islahayd waad ugu imaan doontaa. daawadayaashii qiimaha iyo qadarinta inaga mudan hawada inagala socdaay, qisadeennii maanta oo aad kala socoteen youtube-keenna Qiso iyo Waano TV, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. fadlan subscribe, like iyo share-na siiya daawadayaal, waadna ku mahadsantihiin la socodkiina iyo sidaad u xiisaysaan barnaamijkeena. fadlan ina gaarsiiya meel fog oo u dhiirigeliya shaqada halkani aan ka wadno, si inana aan u dadaalno una horumarino sheekooyinka iyo dadaalka aan samaynayno. mahadsanideen.